دمان بولكيو دمع دوليا iskadayo dadka la noqdadka qaydoona hadii ilaahay meeshii qalad ka jiro haday dawladda tahay haday mucaaradka tahay arintan asaga noo faahfaahin doona qasid barnaamijka qodobada ugu weyn hal iyo labo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan waa idin salaamayaa sidaas lamida ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan dacallada adduunka. barnaamijkan waa barnaamij siyaasadeed, waa barnaamij markasta garab taagan shacabka Soomaaliyeed kuwooda saxan ama quman. wuxuu dhiirigeliyaa cid kasta oo wanaag doonaysa, wuxuuna farta ku fiiqaa cid kasta oo xumaan inay ka shaqeyso ama waddanka Soomaaliya ama shacabka Soomaaliya ku dhibaataysa doonaysa. magaciisuna waa Tusaale Show. haddii aan usoo laabto su-aashaadii muhiimka ahayd kawayarow, waxaan ku falanqeyn doonaa ama ku tataaban doonaa qodobo kamid ah siyaasadda Soomaaliya xaggee ka qaloocan tahay, xaggee ka degi naga dambeeyey ayaa dawlad noqday, wadamo naga horreeyay ayaa dawlad noqday, waa xaggee meeshaan ka daala dhacayno ka kufakacayno. siyaasadda dawladda sidii dadka mucaaradka oo dhaqmayso shacabkii taageerada ay haysato uma muuqato. waxaad moodaa in dhaliiluhu ka badan yihiin. waa maxay marka sababtu? waxaan rabaa inaan sii faahfaahiyo oon sii falanqeeyo anoo sugi doono su-aashaada. waxay dhibaatadu ka jirtaa faham la-aan dawladnimo ayaa ka jirta dalka. faham la-aan dawladnimo sida dhabti markaad tiraahdo faham la-aan dawladnimaa ka jirta, ma dawladdan wax fahansanayn mase dadkan madaxdan wax fahansanayn? maxaad ula jeedaa faham raga? waxaan ula jeedaa mahmaayo Soomaaliyeed oo muhiim ayaa jirta oo dhahaysa duunyadu dugaageeda way taqaanaan laakiin dadku dugaagiisa ma yaqaano. waxaan kaga jeedaa waxay leedahay dawladdan oo kamid ah siyaasadda inay fahamto looga baahan yahay cadowyo badan oo dalkana ka jira dibaddana ka jira. bataatanba waxaan aaminsanahay in aysan fahamsanayn cadowyada isbaarada u hordhigtay ee dhibaateynaya ee kuwana dalka joogaan oy magaca Soomaaliyeed la sheeganayaan oy garab taagan yihiin oo dad wax la qabanaya ay isaga dhigayaan, kuwana ay iyaga ku qaraabtaan oo ay dalka dibadda kaga maqan yihiin oo ay sida dalalka shisheeya ama dadka shisheeya oo kaleeto. waxaan aaminsanahay labadaa qodob markay dawladdu fahamto ayay caqabada ka gudbi kartaa. mucaaradka laftirkiisu soo ma habboona in hadday wax saxayaan qaab kale ay ku saxaan siday hadaladooda naftan oo sax. waa su-aal muhiim ah oo in la isweydiiyo mudan. kawayaro waxaa jirta anigu waxaan dhihi karaaba dalka Soomaaliya mucaarad baba ka jiraba sharci ah oo sax. mucaaradka dalka Soomaaliya ka jira waa dhammaantii waa sharci darro. sababta oo sharci darrada ku yahana waan ku cadaynaya. wuxuu sharci darro ku yahay in waxaa jirta mucaaradka adduunka ka jira. adduunka mucaarad waa la ogol yahay. mucaaradka adduunkana waxaa loo sameeyaa ninka muxaafadka xilka haya in uusan ku talax tegin wuxuu raba samaysanin, kaasuu waardiye u yahay. mucaaradku wuxuu u dhexeeyaa shacabka iyo ninka muxaafadka xilka haya si uu u ilaaliyo xuquuqda shacabka. kaa inuu ku xadgudbo xilka haya lama ogola si sharci ah. oo intuu wanaagga shacabka hayo in uu garab taagnaado ku taageero waayo, xilligii uu qaadi waayana inuu ka qabtaa loogu talagalo wax ka wanaagsan soo saara miiska. laakiin Soomaaliya kama jirto. Soomaaliya mucaaradka ka jira wuxuu yahay aniga ii qoonsataya adiga waxa kuu qabato, aniga haddaan la i dooranin, aniga haddaan waxaan doonaya la isiinin, aniga haddii aan dadka aan wato waxa aan wato ama dadka aan wato la ii hirgelinin ama qofka aan wato xil la iigu dhiibin. mucaaradka ka jira mid waa kaa wadanaysaa caloosha shaqaysaa, midna waa nin aan ogeyn jiritaanka iyo magaciisa iyo Soomaalinimada iyo sharciga midna aan ogeyn ilaalinayna oo u xishay jeebkiisa. arrinka dawladda siyaasadda dawladda adigu sida u aragtaa qasahan qaabka wax u wado? qaab siyaasadeedka hadda dawladdu wax u wado ani ahaan shakhsi ahaanteyda waxaan u arkaa inuu yahay qadajeec. siyaasad markii dawlad la doorto ay awood dawladnimo wax uun hesho ay tilaabo ku qaadi karto kiiba 100 waxaa la dhihi karaa waa qaab ka duwan nidaamka maanta markii dalkeena ama dawladeena la fiiriyo ay ku suurtagelin karto hadafka iyo higsiga la doonayo ay ku suurtagelin karto
dowlad cadow leh oo cargun ah oo aan sida ay la doonayo iyo tilaabada ay maanta la doonayo inay qaado aan hal mar wada qaadi karin. dhaliilaha koowaad ee cadowtinimo ee iyada jilaafaynaya ama lug jaraya in ay ka hortagto oy ogaato. waxaa jira 100 nin oon isku tala ahayn, 10 nin oo isku tala ah ayaa ka adag. waxaa dowladda maantay u fadhida dad aan isku mabda ahayn oo nin walbaa mabda wato, oo nin dowlad dabadda dhisayo, oo nin dowlad cadow dhisayo, oo nin dowlad dalka dhisayo. intaasoo nin waxaan aaminsanahay ilaa ay aragto kan cadowga ku ah oysan af soomaaliga uu ku hadlaya isan soomaalinimo u qaadan, soomaali ahaan soomaalinimo isan u difaacin ee ay ogaato inuu cadow ku yahay. waxaa jira kaba yarow niman baarlamaanka ka mid ah oo u shaqeeya shabaab. waxaa jira niman baarlamaanka ka mid ah oo u shaqeeya dowladaha shisheeye. waxaa jira niman baarlamaanka ka mid ah oo u shaqeeya jeebkooda oo keli ah, oon shacabka u shaqaynin, oon magac u shaqaynin, horumar u shaqaynin, wax walba u shaqaynin. waxa weeyaan wax walbana waxaa lagu ansixiyaa cod, waana meesha sharciga waa hay-adda ugu sarreysa ee sharciga ee dalku uu ka dhismi karo ama uu ka dumi karo. markii ayagii intaasi in lamida ay u qaybsan yihiin, ma suurtagelayso inuu madaxweyne wax suurtageliyo, inuu ra-iisul wasaare wax suurtageliyo. sidoo kale waxay ka mid yihiin wasiiradii ayay ka mid yihiin, isagoo awooddii wasiirnimo haysta, isagoo awooddii baarlamaan haysta, isagoo awooddii qabiil haysta. saddexdaas isagoo haysta ayuu wuxuu doonayaa inuu dal shisheeye u shaqeeyo, wuxuu doonayaa inuu jeebkiisa u shaqeeyo, wuxuu doonayaa inuu qabiilka qaaska reerka isaga uu ka dhashay inuu u shaqeeyo. ninka marka saddexdaa baawir haysta, in saddexdaa meeloodna u shaqeynaya, kama tillaabsan kartid. magacii madaxweynead haysataa inuu fahmo kan inuu cadowgiisa yahay ee kan dalka uu ka qabto, kan dibadda ka imaanayana uu dalka ka qabto oo shisheeyaha uu soo dirsaday. ayuu siyaasadiisa iyo hadafkiisa gaari karaa, shacabka ballantuu ka qaadayna u rumayn karaa. taas waa taas. tan kale waxaan ognahay madaxweyne kasta markuu gelayo doorasho uu si soo sharaxayo, wuxuu isku soo sharaxaa oo miiska kusoo istaagaa 100% inuu wax qaban doono. laakiin adduunka kama dhacdo 100% madaxweyne wax qabta kama dhacdo. 50%, 60% hadduu keeno, inta kale muwaadiniinta iyo shacabka muxaafidiinta ha ku darsada. sababaha uu 100% oo miiska ugu imaanayo oo iskugu soo sharaxaya waxay tahay waa siyaasad ruuxeedu. waa siyaasad hase ahaatee 100% isku soo sharaxay 50 ballan run ah iyo 50 been ah isku soo sharaxay. 50kii beenta ahadoo ballan qaaday waa dhibaato asaga maanta kasoo horjeeda inuu xaliyaa laga doonaya. waxaa jirta nin uu inuu xilgeeyo ku doortay, waxaa jira nin qabiil ku doortay, waxaa jira nin caafimaad ku doortay inuu caafimaad geeyo, waxaa jira nin inuu diblomaasi ka dhigo oo basboor diblomaasi siiyo ku doortay. markaad miiska aad fuusho oo lagula yeesho taladii oo xilkii lagula yeesho oo garabkaaga lasoo fariistana ummadda Soomaaliyeed kula leedahay ummadda Soomaaliyeed kula leedahay kuma suurtagelayaan wixii oo dhan. waa inaad ogaato marka inaad sababaha ugu qaar leedahay ruuxaagu. waa inaad ogaato cid kasta aan dalkana waxba ugu ool, adigana waxba kuugu ool inaad dalka ka qabato, adoo uga qabanaya si sharci ah oon asagana xuquuqdiisa ku xadgudbaynin, adiguna iska ilaalinaya, asagana ka ilaalinaya dalka, shacabkana ku xadgudbaynin.